wararka naga soo gaaraya gobolka Nugaal ayaa sheegaya in wali uu sii fidayo dab xoogan oo xadii ka kacay dooxada deegaanka dalsan. Dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa loo badinayaa inuu ka dhashay isbedelka cimilada sii kululaanaysa maadaama Soomaaliya uu haatan ka jiro kuleyl aad u daran. wararka ayaa sheegaya in dabkan uu qabsaday dhul doog ah oo ku yaala halkaasi waxaana isaga barakacay qoysaskii deganaa goobtaas. dabkan ayaa la sheegay inuu sababay khasaare soo gaaray dhul daaqsimeed ka siman ee dooxada dalsan oo ku dhow magaalada Dangarayno. dhinaca kale Puntland oo sameysay dadaalo dheeraad ah ayaa ku guuleysatay in la damiyo dabkaasi waxaana la magacaabay guddi soo baara siduu dabkan u kacay. kaymaha uu dabka qabsaday ayaa si weyn u gubtay waxaana xaaladda ugu sii daraya markii ay sii qarxeen macdan ku jira kaymahaasi sida laga soo xigtay dadka deegaanka. xaaladdan ayaa lagu tilmaamay masiibo maadaama uu dabkan iskiis u kacay loona sababeynayo isbedelka ku yimid guud ahaan cimilada Soomaaliya oo aad u kulul. dhacdooyinka noocan ayaa mararka qaar lagu arkaa deegaanada Puntland gaar ahaan kaymaha oo ay ku dhow yihiin buuraha oo horey sidaan oo kale dab uga kacay. Umul Khayr Cabdi Axmed, SBTV, Muqdisho.